عروريو عرول تكو ودعودان مدنان عينين وعردينا هلا يسيو ورفع في ماتا ورفع في ماتا waxaan garan karnaa 22 sano burbur Soomaaliya ku dhacay in ay wada burbureen adeegyadii aasaasiga ahaa oo caafimaadku ugu horeeyay burburkii wadanka saameeyay caafimaadkana si gaar ah ayuu u saameeyay sababtoo ah markii horeba Soomaaliya 1990kii xaaladda caafimaad ee wadanka uu ku sugnaa mid aad u sareysa ma ahayn meeshii ay ka sii aanbaqaadi lahayd inay sare sii aado waxay noqotay burbur iyo in hoos u dhacdo caafimaadku wuxuu ka mid ahaa ama uu ka mid yahay qaybaha wadanka ee burburay ee dhibaatadii laxaad kale uu soo gaaray ilaahay mahadii waqtiyadii dambe intii nidaamka dawladnimada ay dib u soo noqotayna wuxuu ku jiraa sektarada ama qaybaha dib u soo laabtay ururka caafimaadka 20 sano oo yani u dambeysay burbur weyn baa ku dhacday markii dawladda meesha ay ka baxday dabcan isbitaaladii oo dhan goboladii degmooyinkii burburkii uu saameeyay xaaladda caafimaad ee deegaanka dawladda Puntland hadda waxay ku soo taariikhnaa xaalad degan laakiin sidoo kale waxa la oran karaa waxaa jira mar walba in xaaladda caafimaadku ay tension iskaga jirta ama ay si emergency la oran karo in marka qaarkood cudurro dilaaci karaan ama ay wax dhici karaan xaaladda caafimaadka Soomaaliya waxaan u arkaa xaalad aad iyo aad u culus inay tahay maxaa yeelay waxaa isku darsamay dagaal sokeey oo muddo dheer socday ilaa dhowr iyo 20 sanadood kaasoo burbur ku keenay dhammaan qaabkii ama haykalka caafimaadka u lahaa ee Soomaaliyeed wuxuu kaloo ku keenay inay qaxaan aqoonyahaankii Soomaaliyeed oo maaragtay dibadaha u qaxaan ama wadamada sokeeye عروريو عرول تكو ودعودان مدنان عينين وعردينا هلا يسيو ورفع في ماتا ورفع في ماتا markaad fiiriso dhinaca wasaaradda horumarinta iyo adeegga bulshada sanadkii hadda aan joognay waxaa noo suurtoobay bal inaan siyaasadihii iyo qorshihii ay ku shaqayn lahayd wasaaradda inaan dejino inaan isku dayno inaan bilowno wax alla wixii karaanka iyaga ah sidii lagu horumarin lahaa caafimaadka inaan u diyaarinay adeegyadii caafimaadka aasaasiga ahaa adeegaas caafimaadka aasaasiga ah waxaan jecelnahay dhowr gobol oo wadanka kamid ah inaan ka bilowno sanadkan intuusan dhammaanin haddii ilaahay idmo waxaa wadanka ka jira cusbitaallo ku qalabaysan qalab casri ah waxaa la sameeyaa xarumo caafimaad oo bixiya adeegyada caafimaadka aasaasiga gaar ahaan hooyooyinka dhallaanka oo ka jira dhammaan gobolada Soomaaliland marka guulaha ugu muhiimsan waxa weeyaan in health system ama nidaam caafimaad oo runtii hanaqaad ah oo shaqeynaya oo 24 hours soo adeega bulshada Soomaaliland oo maanta ka jira gudaha Soomaaliland caqabadaha ugu badan oo horumarinta caafimaadka iyo muxuu ahaa ay naga haysta waxa kamid ah
runtii dhaqaalaha dowladuhu runtii waxay ku bixiyaan aad bay ugu yar tahay marka Puntland uu soo noqon laakiin waxaanu ku xiranay waxa la hay'adaha deeq-bixiyaasha caalamiga marka saas ay tahay misna sidii u baahnayd u helimaysi waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo kugu jiray oo aad qaban lahayd inaad dhaqaale u helo dhaqaaluhu waa lambar 1 buu ka yahay caqabadaha hor imaanaya caafimaadka Soomaaliya waa lack of human resource marka maadaama burbur weyn uu ku dhacay jaamacadii macaahidda hore u soo saari jirtay inkastoo ay jiraan dadaallo dad qaar isxilqaamay ay sameeyeen oo jaamacad waddanka laga furay laakiin tirada hadda ka soo baxday kuma filna caqabaduhu mararka qaarkood way badan yihiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waa dhaqaalaha dalka oo kooban awgeed waxaa adag in la helo adeeg caafimaadka dhaqaale ku filan waxaana wasaaradda caafimaadku wada shaqayn fiican la leedahay hay'adaha caalamiga iyo wadamada deeq-bixiyaasha kuwaasoo kaba dhaqaalaha ku baxa caafimaadka taasoo inta badan aan ahayn wax lagu tiirsanaan karo oo haddii fundska ama deeqahaasi dib u dhac ku yimaada ay saameyn ku yeelanayso adeegyada caafimaadka ee bulshada loo fidinayay caqabadda ugu weyn caafimaadka hortaagan waxaa ka mid ah nabadgelyada waa mid ugu horeyso nabadgelyo haddii la waayo waa caqabadda ugu horeeya wax dhaqaaqi karaya ma jiraan caqabadaha ugu waaweyn ay tahay oo aan haddeer isleeyahay haddii xal loo heli lahaa waxbaa hagaagi lahaa waxa waaye horta in la helo kow caqabadda ugu weyn ay tahay dad caafimaad oo waayo araga oo khibrad leh oo hoggaanka iyo nidaamka hoggaanka u qabta inay tahay number 1 problemka rasmiga ah ee dalka yaalan la inkiri karin caqabadaha aad bay u fara badan yihiin haddii looga fariisto xalkoodana dowladda waa adkaanaysaa in xal loo helo xalka wuxuu ku jiraa in lays wada kaashto oo si wada jir ah dowladda iyo shacabka iyo ururada bulshada waxaan aaminsanahay xal in la helayo systemka caafimaadka waxaanu qorshaha noo degan wuxuu yahay in haddii ilaahay idmo la dardargeliyo ama la dhammaystiro adeega caafimaadka dhammaystiran waxa loo yaqaano adeegaasi waa istiraatiijiyo Soomaaliya oo dhan aanu u sameynay oo runtii qaybna ka ah ilaa intii dukumeentigiisa la diyaarinayay istiraatiijiyadaasi waxay sheegaysaa in caafimaadka la gaarsiiyo magaalooyinka waaweyn degmooyinka meelaha community u degan yihiin ilaa muxuu ahaa village-ka oo meelaha la isugu yimaado marka istiraatiijiyada higsan horta waxa weeye in adeeg caafimaad oo dhammaystiran la gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed ee Puntland iyo cid kasta oo ku nool deegaankaas caafimaadka Soomaaliland waxaan ku tala jirnaa oo ku qeexan siyaasadda caafimaadka in la gaarsiiyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland adeegyada caafimaadka asaasiga taas waxa weeyaan waa aragtida guud visionka guud sida lagu gaarayna waxa wasaaradda caafimaadku sameysay strategy-gaas wuxuu qeexayaa qaabka iyo hanaanka la rabo in caafimaadka lagu gaarsiiyo dhammaan bulshada Soomaaliland isla markaa kor lagu qaado tayada caafimaadka waxaa weeye caafimaadka Soomaaliya sida maanta uu yahay meesha uu ka soo dhaqaaqay iyo waxa aan higsanayno mustaqbalka rajo aad u fiican ayaa jirta haddii amniga sida hadda uu u fiicnaanayo uu ku sii socdo waxaan rajaynayaa Soomaaliya muddo 5 sano gudahood ah wax badan in laga bedeli karo adeeg caafimaad bulshada in la gaarsiin karo qorshihii degsanaa haddii la dabaqo oo duruufo munaasab ah lagu dabaqa la helo rajo aad u wanaagsan iyo mustaqbal nuuraya waxaan kaloo ii muuqato adeega caafimaadka asaasiga oo Soomaaliya oo dhan laga dabaqo gobol iyo degmo iyo tuulo qof kasta oo Soomaali ah oo tuulada ugu yar joogo inuu helo adeeg caafimaad asaasi caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradeena hala iseeyo
qaata